Assalaamu calaykum asxaabta waa idin wada salaamay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan marka daraata waxaan ballan qaaday habeen dhexdaas aan ballan qaaday inaan soo gelin doono waxyaabo linkiga dhag aad siin kartaan marka tan ugu horeyso hadda aan soo gelinayo linkigan oo youtube-ka aan soo gelinayo waxaa waaye free child care for working parents marka child care ilmaha meel lagugu ilaalinayo waalidka shaqeeyo marka waalidka shaqeeyo waxaa looga baahan yahay aabbayo hooyo haddaa guriga ku joogtaan labadiinaba ugu yaraan waaya ugu yaraan 16 saacadood qofkiba inuu shaqeeyo aabana 16 hooyana 16 ay shaqeyso ay lacala haddii hooyo keer ay qaadato ama aaba keeras allowance oo qaato qofka kale waa 16 saacadood inuu shaqeeyo ay muxuu ahay shaqo hadda mid ka mid ah labadiina oo shaqo markaas haynin laakiin shaqo diyaar ay ku tahay taasna waa lagu tixgelinayaa marka waa muhiim in aad muxuu ahaye shaqo aad haysaan ama ay diyaar kuu taho aad bilaabi doonto marka insha Allah taas inaa fahamteen umaleynaa marka hore tan labaad waxaa waaye markaad isdiiwaan gelisaan linkiga aan soo gelinaya aad iska diiwaan gelisaan waxaad arkaysaa informationkaaga oo dhan aa lagu weydiinaya haddii lacala xaq aad u yeelato muxuu ahaaye waxaa lagu siinaya code nambaraa lagu siinaya nambarkaas codekaas lagu siiyo ama nambaradaas lagu siiyo ayaa waxaad u geynaysaa xarfo iyo nambaro wax isku jirjira waaye nurseryga ama child minderka meesha ilmaha lagugu haayo tan ugu muhiimsan waxaa waaye in cunugaas cunuga ma ahan meesha nurseryga cunugaaga aa geynaysid ama child minderka cunugaaga aa geynaysid in ay Ofsted approved qof Ofsted ka diiwaan gashan inay tahay Ofsted ay ogolaatay waa muhiim deriskaaga oo kale uma geyn kartid oo 30 saacadood ma helayaan wax diiwaan gashan leh waxa dhanba insha Allah marka waxaan u maleynayaa inaad wada fahamteen hay'teeda kalena subscribe saar YouTube-ka markaa fiirsanaysaan fadlan adoon subscribe saarin ha ka tagin YouTube-ka dhagsiiso linkigaaga muxuu ahaaye subscribe hore ka saara dhammaantiin idinkoo mahadsan salaamu calaykum